waxaynu nahay dad dabiicigoodu asalkoodu yahay balse waxaa jira dad dabiicigoodu asalkoodu ka fog yahay haddaba maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah shakhsiyaadkaas haddaba ku soo dhawaada mawduuceena maanta Mandy Selassie qoftan waxay ku dhalatay cudur dhif iyo naadir ah oo lagu magacaabo Milroy wuxuuna ku sababay in ay lugaheedii ka weynaadaan sidii dabiiciga ahayd ballaca lugaheeduna wuxuu gaaraa ilaa 43 cm Mandy culayska lugaheeda awgeed waxay awoodi weeday inay ku noolaato nolosha dadka caadiga ah waxayna ku socotaa kursiga curyaamiinta waana mid lala yeeshay wareysiyo fara badan Mahanti Amar Biharti Jay waqti intee leeg ayaad gacantaada kor u taagi kartaa Amar wuxuu gacantiisa kor u taagayay muddo 45 sanadood ah laga soo bilaabo sanadkii 1973 ilaa iyo maantadan isagoo muddadaas gacantiisu ahayd sidan ku muuqata markii uu kor u taagayay gacantiisa muddo 3 sanadood ah Amar wuxuu ka tagay shaqadiisii iyo qoyskiisii waxaana sababtay in uu kor u taago gacantiisa midig arrimo la xiriira diin isagoo go'aansaday in uu ka fogaado raaxada dunida sidoo kale waxa xusid mudan in ay gacantiisii hawsha gabtay ayna noqotay geed ka taagan jirkiisa haye jawaab ma heshay su'aashii waqti intee leeg ayaad gacantaada kor u taagi kartaa 3 daqiiqo mise 4 daqiiqo intaasna waa iga kaftan Maria Hills haweeneyda ugu naasaha weyn dunidan ma ahan mid dabiici ah waa mid uu ku sababay xanuun halkeeda naas waa 10 kilogram taasoo ka dhigaysa isku darkooda 20 kilogram waana mid ku faraxsan inay tahay haweeneyda ugu naasaha weyn dunida inkastoo xanuun uu ku sababay waana mid sawiradeeda soo dhigta baraha bulshada waxayna muujisaa in ay ku qanacsan tahay inay tahay haweeneyda ugu naasaha weyn adduunka Julia Fetish waa gabar Ruushiyaan ah oo qurux badan waana 22 jir sawiradeeda waxay ku faafeen baraha bulshada taasoo sabab u ahayd murqaheeda waaweyn Julia markii ay jirtay da'da 15aad waxay bilowday qaadida baraha iyo jimicsiga waana gabar waji qurxoon leh laakiin aan xiriir la lahayn quruxdeeda jirkeeda kale isbuucina waxay aalamiintaysaa 4 maalin oo kamid ah waxayna cuntaa cuntooyin kordhiya ama ka qayb qaata koridda murqaheeda Jaspreet Singh waa cunug da'yar ah jirina da'da 15aad waana wiil u dhashay wadanka Hindiya wiilkan wax uu awood u leeyahay in uu isku lablaabo jirkiisa arkana gadaashiisa dambe isagoo wareejinaya qoortiisa oo kaliya wuxuuna awood u leeyahay in uu wareejiyo qoortiisa xagal dhan 180 halka gacmihiisana uu wareejinayo xagal ah 360 run ahaantii waa wax la yaabo wuxuu soo shaabaxay muddo laga joogo 4 sano kadib markii uu ku biiray ciyaarta loo yaqaan yoogada kadibna uu sameeyay ficilo la yaabo wixii intaas ka dambeeyana wuxuu noqday mid caan ah haddaba intaas ayaan ku joojinay muuqaalkeena maanta waana inoo muuqaal kale si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dheh oo ka mid noqo boqolaalka qof ee ku xiran janaalka Xoghaye nagulana soo biir caalamkan cusub aadna ka faa'iidi doontid xogo iyo dhacdooyin la yaab leh